بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروم وحن كمدا هاي حلبانadii Soomaaliyeed dadkii u tartamay xildhibaanimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xaq darradu ku dhacday sidaad la socotaan go'aan baa waxa soo saaray maxkamadda sare. Horta go'aanka maxkamadda sare soo saaray wuxuu daba joogaa go'aankii guddiga xalinta khilaafaadku uu soo saaray oo uu 11 kursi oo dadkii tartamayaasha ahaa oo gabood falka lagu falay oo xaq darrada aadka u xanuunka badneyd iyo cadaalad darradii lagu la kacay oo cawday 11 kamid ah kuraastii loo dacwoonayay bay waxa guddiga xalinta khilaafaadku ay go'aan ku gaareen in 11 kaas kursi si xalaal aysan ku soo galin baarlamaanka ee dib loogu tartamo. waad la socotaan wixii dhacay waa la soo farageliyay go'aankii guddiga xalinta khilaafaadka la siyaasadeeyay oo siyaasad soo dhex gashay si aan cadaaladda waafaqsanayn baa arintaas si xaq darro ah ay dhinac ugu dhacday. anagu marka ma aanan aadin dariiq kale dagaal ma aanan kicin ma aanan caytamin colaado ma aanan abaabulin waxaan go'aansanay inaan si ilbaxnimo ah aan ku raadsano xaq naga maqan annagoon dagaal kicin dad abaabulin mudaaharaad iyo samayn aan wax khalkhal ah aan abuurin dariiqadii aan islahayn waxay noqon kartaa midda ugu habboon ugu cadaaladsan oo ku heli kartaan xuquuqdiina muwaadin ahaan dacwaan qorannay waxaan qabsannay qareeno dacwadeeda u dooda arintaas maxkamadda sare iyo garyaqaanka guud ee dawladda oo guddiga xalinta khilaafaadku u qoreen go'aankii ay gaareen baaritaan dheer la sameeyay iyo process muddo dheer socday waxa go'aanku u soo baxay maxkamadda sare in 8 kursi oo kamid ah 11 kursi oo xukunkaas uu ku dhacay in dib loogu celiyo doorasho oo macnaheedu yahay dadkaas kuraasta ku fadhiya sifihii sharciga ahaa oo qaanuuniga ahaa oo la rabay inay ku noqdaan xildhibaano waa jaban yahay oo ma buuxo macnuhu ma aha qof lagu bedelayo halka waxaan rabaa inaan aad u saxo dadku waxaad moodaa in wax isaga khaldan yihiin qof baa laga soo kicinayaa meesha qof baa lagu tuurayaa maaha waxaa la xalaaleynayaa kursiga weeye kursigan lagu fadhiyo oo la boobay tusaale ahaan aniga kursiga jifadaydu ay u dacwoonayso oo kamid ahay dadkii kursiga isu tartamayay horta sideeda kursi haweeneed buu ahaa kursi haweeneed baa qof ragihii ku fadhiya kursiga dib u noqoshadiisu waxa weeye in dib loogu tartamo oo u tartamaan midka aniga kayskayga khuseeya waa kursi haweeneed oo si xaq darra loogu boobay rag kursigaas dib waxa loogu celinayaa jifadii waxaana u soo tartamaya gabdhaha jifadaas ka tirsan kuraasta kale ayaguna oo ama ay isku haystaan dad haweena iyo rag kursigayga intaan ka ahayn waxa u soo tartamay kuraasna haween baa u tartamay oo si xaq darro ah ugu dacwoonaya in looga boobay kuraasna rag baa u wada tartamay oo cadaalad darro dirsanaya waxaa dib loo celinayaa horta waa tartankii oo macnaheedu yahay dadka ku fadhiya hadda kuraastu tartanka waa ka qayb gali karaan warkaas macadiya ma ahan in qof inta la soo qabto baarlamaanka laga soo bixiyo qof kale lagu bedelayo kursigii baa la xalaaleynayaa qofka ku fadhiya waa inuu soo maraa dariiqii xalaasha ahaa oo aan qof laga soo boobin waxaa laga rabaa procedure-ku inuu ka yimaado cidda fulinta leh go'aanka maxkamaddu wuxuu rabaa in la fuliyo dabcan waxyaalahaas technicalities-ka waxay ka soo bixi doonaan cidda leh awooddaas laakiin inta aan ka naqaano procedure-kii lagu soo doortay buu kursigu maraya dadba waxaad dhici karta dad kale cusub oo hor Allah inay tartanka ka soo qayb galaan ka dacwoonaya kan ku fadhiya
iyo dad aan haddaba joogin inay tartanka ka soo qayb galaan waxa loo tartamayaa waa kursiga la xalaaleynayaa processkii kan horamaray oo ahayd ergadii in dib loo yeero ergadii kontar iyo kowga ahayd baa dadka dib u dooran doonta arrintan horta hadda go'aanka soo baxay talaabada labaad oo xigtaa waxay tahay fulintii waxaa laga sugayaa maxkamadda sare anigu aqoonta inta aan u leeyahay qaanuunka go'aanka maxkamadda sare waa go'aanka ma dambeyn ah aqoon inta aan u leeyahay way aragnimadayda anigu sharci yaqaan ma ahi qof xildhibaanihi qof kale xuquuq meeshaan waxa yaala waa xuquuq qof muwaadin ah xuquuqdiis ama qaanuunka midna horta lamaba siyaasadayn karo xeer jajab ma galo qaanuunku xeer jajab ma galo dariiqad buu leeyahay dariiqada loo marayo waa la tilmaamayaa dariiqaasa loo marayaa qaanuunku xeer jajab ma galo dawladnimaduna xeer jajab ma gasho qaanuunka iyo sharcigana lama siyaasadeeyo waxaa qoran sareynta sharciga qof iyo hay-adi sharciga kama sareeyo marka waa bilow procedure dheer bay arrintaanu maraysaa laakiin midda aan rabo inaan caddeeyaa waxay tahay kuraasta waa loo tartamayaa dad baa u tartamaya ee macnaheedu ma aha sidii baarlamaankii hore oo qofkii ama dhinta ama la isu qabsado qofkii inuu qof markiiba kursiga loo fariisinaya ma ahan tani waa ka bedelan tahay waxaa dib loogu noqonayaa doorasha la aadaya kuraasta waa loo tartamaya qof inta qoorta la qabto qof kursiga la fariisinayo taasaan rabaa inaan caddeeyo oon arkay dad inay isaga qaldan tahay kursiga la xalaaleynaya qofka ku fadhiya hadduu dib ugu soo guulaysto asagaa xaq u leh inuu ku fariistahay annagu waxaan nahay dad sharciga aaday xuquuqdoodana ku raadiyay dariiqada sharciga ee aan dagaal iyo ku raadin xoog midna dalkan wuxuu galay marxalad ka bedelan marxaladihii uu ku jiray wax badan baad waayay arag u soo noqoteen qoriga ka sareyn jiray sharciga hadda waxaan maraynaa marxalad sharcigu uu qofkana ka sareeyo qorigana ka sareeyo sharciga awoodda waxa iska leh Allah leh laakiin sharciga sareeya waxaan rajaynayaa rule of law in lagu dhaqmo qaanuunka in la tixgeliyo go'aan baa maxkamadda sare soo saartay go'aankaasi inuu fulin cadaalad ah uu helo haddaan sharcigu uusan sareynta yeelan oo qawaaniinta la xoojin laguna dhaqmin hadda dawladnimo ma jirto dawladnimadu wax kale ma aha waa sharciga oo la ilaaliyo isbedel baa dalkan ka dhacay oo u jeedeen doorashadii la galay sidii uu ahaa qaanuunku baa loogu kala baxay macnuhuna waxa weeye waxa xoog galihi waa sharciga haddii kale si kala wax ahaan lahaayeen waxaa loogu kala baxay sidii sharcigu ah wixii ku dhignaa xeerka oo ahayd madaxweynenimada waxaa ku qaadan kara oo madaxweyne noqonaya ninkii intaas codadkii baa la galay qofkii codadka badan helay baa madaxweynenimadii ku guuleystay haddaan sharciga loo hoggaansamina waxa weeye dawladnimana ma jirayso xasilooni siyaasadeedna ma jirayso aniga kalsooni weyn baan ku qabaa waayo waxaan aaminsanahay inaan dawladnimadu iyo deganaanshuhu jireen haddaan sharciga loo hoggaansamin haddaan qaanuunku sareyn dawladnimo ma jirayso marka kalsooni buuxdaan ku qabaa in go'aanka maxkamadda sare uu helayo fulin cadaalad ah oo sidii maxkamaddu u go'aamisay uu u fulayo kalsooni baan ku qabaa